waxaan xaaskayga hadiyad dhalasho ahaan u siiyey gaari qaali ah, balse ma ogeyn inay isla habeenkaas siin doonto ninka ay jeceshahay. Habeenkaas anigoo qorsheynayay casho shumac ah oo aan la qaato xaaskayga, ayaa si lama filaan ah gaari qaali ah gadaal iiga soo dhuftay. darawalkii kale ayaa si kibir leh u soo degay, isagoo markiiba dalbaday inaan raaligelin ka bixiyo, wuxuuna ku adkaystay inaan siiyo 3 milyan oo dollar oo magdhow ah. Markii hore ma aanan rabin inaan la doodo, ilaa aan gartay in gaariga uu yahay mid aan aad u aqoon. Wuxuu ahaa kii aan subaxdaas aniga qudhaydu siiyey xaaskayga. waxaan is idhi malaha waxay amaahisay saaxiibkeed, ilaa uu ninku si faan ah ugu faanay in gaarigu uu hadiyad ka ahaa gabar ay saaxiib yihiin, isagoo intaas ku daray inay tahay qofka ugu taajirsan magaalada. waxaan isku dayay inaan naftayda u sheego in ay tahay wax iska yimid, ilaa uu soo saaray sawir isaga iyo xaaskayga ah. halkaas ayaan ku fahmay xaqiiqda. xaaskaygu way i khiyaantay. anigoo xanaaq la gariiraya ayuu ninkii dareemay wejigayga isbedelay, wuxuuna iska dhigay deeqsi isagoo ii soo bandhigay inuu madhowga iga dhimo 300,000 oo dollar, sidii isagoo ixsaan ii samaynaya. waan u adkaysan waayey, waxaan ku dhuftay feer dhulka dhigay. isagoo cadhaysan ayuu markiiba u yeeray saaxiibadiisii ay ii soo weeraraan, balse xilli xasaasi ah waxaa soo gaaray booliiskii oo joojiyey. ninkii wuxuu si degdeg ah iigu eedeeyey inaan anigu shilka sababay, laakiin boolisku ma rumaysan sheekadiisa. waxay eegeen muuqaalkii kaamerooyinka gaariga, waxayna ku soo gabagabeeyeen in isaga gebi ahaanba khaladka lahaa. waxay ku amreen inuu aniga ima dhabo. isagoo argagaxsan ayuu wacay si uu caawimaad u helo. waxaan maqlayay codka xaaskayga oo dhinaca kale kala hadlaysa, kuna dejinaysa in gaarigu si weyn u caymisan yahay. ninkii waxa u soo noqotay kalsoonidii, balse markii ay yimaadeen wakiiladii caymiska way naxeen. waxay aqoonsadeen in gaarigaygu yahay nooc si gaar ah loo sameeyey oo qiimihiisu yahay ugu yaraan 30 milyan oo dollar. hase yeeshee markii ay arkeen warbixinta shilka way degeen, iyagoo sharaxaya in shilka bareerka ah uusan caymisku daboolin. markuu arkay iyagoo iska tegaya ayuu ninkii si xun u cadhooday. markaas ayuu nimankiisii ku amray inay burburiyaan gaarigayga, isagoo u malaynaya inuu yahay gaari raqiis ah. kadib markii uu cadhadiisii ku qaboobay, wuxuu si caadi ah u soo tuuray 200,000 oo dollar, isagoo u haysta inay taasi ku filnaan doonto inuu gaariga ku iibsado. laakiin waxaan u sheegay in lacagtaasi aysan xitaa dabooli karin hal nal oo ka mid ah nalalka hore ee gaarigayga. dadkii hareeraha joogay waxay u maleeyeen inaan baad ka qaadanayo, ilaa ay yimaadeen kooxdaydii caymiska ee igaarka ahayd, ayna xaqiijiyeen in qiimaha gaariga ee sida gaarka ah loo farsameeyey uu yahay 30 milyan oo dollar. ninkii meeshiisii ayuu ku qaboobay. isagoo aan meelna u bixi karin ayuu mar kale u jeestay gabadhii saaxiibtiis ahayd si ay u caawiso. xaaskaygu waxay ku tidhi marka hore ku bixi kaarkiisa, iyadoo u ballan qaaday inay dhaqso u imaan doonto. lacag bixintii si degdeg ah ayay u dhacday. markaas ayay igu soo dhacday in dhammaan lacagtii aan siiyey xaaskayga lagu bixinayay ninkan hortayda taagan. markii ay isku dayeen inay baxaan ayaan si degan u idhi, lacagtaasi waxay dabooshay hal gaari oo keliya, weli waxaa dhiman mid kale oo magdhow u baahan. wuu fahmi waayey, wuxuuna si cadho leh iigu eedeeyey baad qaadasho. waxaan tustay shahaadadii lahaanshaha gaariga, anigoo caddaynaya in gaarigaas kalena anigaa iska leh. wuu rumaysan waayey, isagoo xitaa sheegay in dukumentiyadaydu ay yihiin been abuur. isla markaas waxaa soo gaaray gabadhii uu u yeedhayey saaxiibtiisa ugu taajirsan magaalada, taasoo ahayd xaaskayga. markii ay ogaatay in qofka uu wiilka saaxiibkeed ahi isku hayo aan aniga ahay, wejigeedu wuxuu noqday cadaan. waxay markiiba bilowday inay cafis i weydiisato, iyadoo si cod dheer ah u sheegaysa jacaylka ay ii qabto. laakiin waxyaabaha qaar lama tirtiri karo. waxaan go'aansaday inaan furo oo aan hubiyo inay wajahdo cawaaqibka falkeeda. haddaad ka heshay sheekadan, xusuusnow inaad falow isoo dhahdo si aad u hesho sheekooyin kale oo xiiso leh.